kulanti wanaagsan khiyaartan dhagaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijkan oo qaybka barnaamijyo taxana ah oo aan uga hadlayno qabyo qoraalka dastuurka dalka Soomaaliya. waa qaybtii shanaad ee barnaamijyada waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Ayaanle Xuseen Cabdi. wixii kale waa suur xaarash iyo gacan ismarin oo ah walaalo qaal ah iyo kugusan marka arrinta Soomaalidu dib u heshiisiinta Soomaalidu ma dhibadna macnaha kala guur caadil ah markaan leenahay waxaan ka wadnaa habka ay ku imaanayaan hogaaminta dadka mataqaanaa hogaaminaya hadduu noqon lahaa baarlamaanka madaxweynaha waa inay ku yimaadaan si caadil sida intiina la socotayba barnaamijyadeenna aad maqasheen ama akhrisatay dastuurka waxaa dastuurka qabyo qoraalka dalka Soomaaliya uu qorayaa qodobkiisa 111aad xarafkiisa ja guddiga iscafinta iyo dib u heshiisiinta. haddaba barnaamijkeennan oo aan kaga doodi doono dib u heshiisiinta iyo kala guur cadaalad ku dhisan ayaa waxaa igala qaybgalaya Dr. Cabdi Shire Warsame oo ah guddoomiyaha Regional Leadership and Development Center ee loo soo gaabiyo RLDC ee gobolka Geeska Afrika iyo sidoo kale abukaate Cabdikariim Maxamed Soomaali oo ah aqoonyahan sharciyada bartay kana baxay kuliyadii sharciyada ee jaamacadda Soomaaliyeed ee Gahayr. ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa Cabdi Shire. dib u heshiisiintu waxay ila tahay waxa hirgelin kara oo dib u heshiisiin nidaam ay ku hoos dhalato bay u baahan tahay. haddii hadda dib u heshiisiin aan dawlad iyo nidaam adag oo fuliye aysan jirin wixii hadda la gaaray waxa burburin kara hal qof. marka dib u heshiisiinta dadka Soomaaliduna waa dad wada dhashay waxaan hubaa haddii ay marto oo dariiqa loo baahan yahay la maro inay dib u heshiisiintu imaan karto waxayna ku imaan kartaa Soomaalidu waxay leeyihiin inay wixii dhacay qaab ay uga samraan inkastoo la dhaho reer muduga iska leh xalay dhilay aan ka noqonay dhahan mugta reer mudug kuwan kale ruuxeeda waxaa jira waxyaabo asaasi u ah dib u heshiisiinta oo waxa asaasi u ah haddii hanti la kala haysto hantida muuqata oo la kala haysto guryaha kamida beeraha kamida muxuu ahaa haddii kuwaas hay'ad garsooro cidda isku haysato u dacwo qaada la helo oo ay meesha ka baxaan ama ay dadku inta isku gartaan isu ceshaan wixii kale waa suur xaarash iyo gacan ismarin oo ah walaalo qaal ah iyo kugusan marka arrinta Soomaalidu dib u heshiisiinta Soomaalidu ma dhibadna laakiin nidaam lagu hoos sameeyay u baahanta. waayahay Cabdikariim abukaate waxaan ku weydiinayaa awoodda dastuurku uu siinayo arrimaha dib u heshiisiinta maxaad iga sheegi kartaa? arrimaha dib u heshiisiinta sideeda waxaa loo baahan yahay sida uu dastuurku qabo dib u heshiisiinta maaha oo kaliya inay soconayso waqtiga kala guurka oo kaliya. dib u heshiisiinta waxay soconaysaa xitaa markuu maamulku dhasho baarlamaanku yimaado la gaaro mataqaanaa inuu baarlamaankaasi siduu qabo qodobka 111 qabyo qoraalka dastuurka in la sameeyo guddi oo sameeya mataqaanaa dadku inay iscafiyaan in maxaa la yiraahdaa dib u heshiisiin ay dhacdo. guddigaasi habka lagu dooranayo iyo mataqaanaa inta aan la magacaabin uu baarlamaanka sameynina wuxuu sheegayaa in marka hore la sameeyo mataqaanaa sharcigii oo uu guddigaasi ku dhaqmi lahaa isu dhaqmi lahaa dadka ka mid naqanayana waa inay noqdaan dad ku leh mataqaanaa ixtiraam gaar ah bulshada dhexdeeda oo ah mataqaanaa ka mid ah bulshada rayidka ah ka mid ah baarlamaanka ama qof xildhibaan ah inuu ku jiro dad mataqaanaa xagga diinta iyo mataqaanaa looga dambeeyo oo aqoon u leh dad kale oo intellectual ah oo aqoonta maadiga ah yaqaana inay ku jiraan iyo shuruudooyin badan oo waxa jira oo uu daba dhigayo oo qofkaasi inuu yeesho ay tahay. waa ku soo noqonaya Cabdikariim. Dr. Cabdi Shire waxa dastuurku leeyahay waa in la sameeyaa guddi iscafiska iyo dib u heshiisiinta ka shaqeeya si loo helo qaran bogsool. marka guddigan ma waxay ahayd in inta aanan dastuur iyo wada hadal la sameeynin oo dawladda la sameeyo mase in markii dawladda la dhiso ka bacdi la sameeyo guddigan? waxaan isleeyahay guddiga markii dawladda dhiso in la sameeyaa habboon sababtoo ah dastuurku mar hadduu xuso dastuurka fulintiisa dee xukuumadda iyo dawladda ayaa u xil saaran
inay dhaqan geliso. laakiin guddiga meeshan dastuurka wax badan uu ka hadlayaa xitaa inuu madax bannaani xooga siinayo oo guddigaasi yahay guddi awood fiican leh in xukuumadda iyo dowladda aysan faragelin karin howlaha guddigaasi oo kale inay ku taageeraan wax u baahan yahay oo kale maahe marka suuragal ma tahay adoo eegaya maamulada soomaaliya soo maray in guddigaasi awoodda uu siinaya dastuurka lagu ixtiraamo haha dabcan waa loo baahan yahay guddigaas waxaa loo baahan yahay madax bannaani inuu helo sida uu qabo qodobku sideedana maadaama ay yihiin guddi u dhaxeeya oo dadkii mataqaanaa say u bogsiiyaan oo boog ay jirto oo dhibaatooyin badan iyo lasoo wada maray guddigaasi waxaa loo baahan yahay inuu noqdo guddi dhexdhexaada oo dowladduna inayna soo faragelinin awooddaasna lama rabo oo keliya qaanuunka sidiisa annagu waxaan barannay inuu ahaado mid ku qoran buugga keliya oo uu ahaado mid waxaa la rabaa sida uu yahay in loo dabaqo dhibaatadanna haysa soomaaliya markaad dib u eegto ku-meelgaarnimada inta hadda ay jirtay iyo dowladihii kala duwanaa ee soo maray waxyaabaha ugu badan ama qaladaadka ugu badan ee dhacaya waxay ahaayeen axdigii ku-meelgaarkaa jiray intaan dastuurkan qabay qoraalka jiray laakiin laguma dhaqmi jirin oo wuxuu ahaa oo keliya buug mataqaanaa iska yaalla oo qaanuunka uu ku qoran yahay waxaa dhici jirtay inay saddexda awoodood oo mataqaanaa ama markaan idhaahdo saddexda jego ee ugu sarraysa inay iska hor yimaadaan khilaaf uu dhaco khilaafka habka lagu xalinayo waa sheegaya axdiga kumeelgaarka wuxuu dhahaya xitaa haddii laga waayo axdiga kumeelgaarka waxaa la aadayaa dastuurkii 60 oo wixiise dhan ay u dhammaayeen iyo qaanuunadii waagaas jiray marka ugu horaysa marka madax banaanida ay leeyihiin guddigaani waa sida uu u dhigaayo qabiil qoraalka marka la ansixiyo oo dastuur uu noqdo waa saas in mataqaanaa guddigaasi ay waa gartay cabdikariin hadalkaaga waxaan ka dareemayaa inaad ka warwarsan tahay sida lagu fulinayo waxyaabahan meesha ku qoran oo kale doctor cabdishire maxay kula tahay fulinta hawshani warwarka uu muujinayo cabdikariin oo aysan ahayn inay iska qornaatay u baahan tahay in la dabaqo soomaalidu waxay tidhaahdaa wiilkaagu maalin buu kaaga baahan yahay hiil waa maalinka aad hooyadii guursanayso marka wiilka ilmaha kuu dhalan doona waxaad ka qiyaasi kartaa hooyada aad guursanayso horta guddiyo iyo dib heshiisiin iyo inay dalka ka dhacdo waxaa saldhig u ah xukuumadda iyo hoggaanka hadda la dooranayo nooca ay noqonayaan haddii hoggaanku uu noqdo hoggaan muxuu ahaa karti u leh oo hufan oo ku habboon wuxuu dhalayaa guddiyo habboon xukuumad habboon marka saldhig waxaa u ah haddii guddiga guddi ugu fiican la sameeyo laakiin xukuumaddu ay tahay mid ayadii wixii guddigu shacbiga ka biskaynaya haddii xukuumaddii kore ka muuqato dee fiyoomidii ma imaanayso marka guddigu inuu sida walaalkay u sheegay uu noqdo guddi awood leh guddi yaqaana wuxuu rabo guddi waxaa warqadda ku qoran keliya aan ku salaysnayn dhaqanka soomaalida yaqaana midda kale istraakjarka qaabdhismeedka qaranka uu qaadanhayo ruuxiisu waa inuu noqdaa qaabdhismeed aqbalhaya dib heshiisiinta sababtoo ah hadda qaabdhismeedyada la rabo in dowlad goboleedyada loo sameeyo ma ahan qaabdhismeedyo dib heshiisiin aqbalaya sababtoo ah marka qabiil walba calan marab meel ka taagto dib heshiisiintu waa adkaanaysaa laakiin marka si nidaamsan oo dawladdu ay ka baaraandegtay loo sameeyo oo dadku siday isu raaci karaan iyo siday isugu degaan u yihiin iyo sida macquulka loo saleeyo dib heshiisiintu waxay u ahaanaysaa mid si sahlan ku timaada dadka Soomaalidu hawna waa dad waxaanoo kale iyo dagaaladan iyo colaadahan waqtiga un baa dheeraaday waa soo mari jireen marka waxaan filayaa inaysan ahayn mid dhibaato lagala kulmahayo laakiin waxaa wax weyn u baahan hoggaanka inaan ka fakarno hoggaanka dhali doona guddiyada cabdikariin adaan kuusoo noqonayaa waxaad ogtahay soomaaliya dhib badan baa ka dhacay waana burbur xoog laha dhacay 20 sano muddo ahana dhibaatadaasi jirtay howlaha ugu waaweyn ee guddigani hor yaalla xilligan weliba laga hadlayo dib u heshiisiinta iyo kala guurka maxay noqonaysaa howlo aad u fara badanaa yaalla oo guddiga mataqaanaa loo baahan yahay inay wax ka qabtaan dad badan baa hanti dadweyne kale leeyahay ama hanti dowladeed ama kala qaatay ama waxaa jiro dagaalo badan oo dhacay oo ahli ah oo soo maray waddanka marka waxyaabo badan oo hantidaas in loo celiyo dadka iska lahaa in cafis la sameeyo oo ay mataqaanaa sida haddaba uu ku qoran qabiil qoraalka loo baahan yahay in ay dadkaasi mataqaanaa ay iscafiyaan oo mataqaanaa laakiin arrimahaas oo dhan waxaa saldhig u ah sida uu sheegay walaalkay
in la helo kala guur caadil ah. macnaha kala guur caadil ah markaan leenahay waxaan ka wadnaa habka ay ku imaanayaan hogaaminta dadka mataqaanaa hogaaminaya hadduu noqon lahaa baarlamaanka madaxweynaha waa inay ku yimaadaan si caadila oo laga wada arkaa dhammaan bulshada mataqaanaa soomaaliyeed ee ku wada dhan tahay hadda markaan soo qaadno oo aan dib ugu noqonno habka mataqaanaa intaan baarlamaanka imaanin waxa waaye hab raadraac ayaa jira oo loogu talagalay lagu soo gaarayo mataqaanaa kumeelgaarnimada looga baxayo habraacaasoo ah sida in la sameeyo in sida laysugu keenayba hadda xamar oday dhaqameedkaasi habkay xataa ku yimideen waa inay noqotaa micnaha mid caadila kadibna oday dhaqameedkaasi ay keenaan dad mataqaanaa ansixiyada suurka oo 825 ah iyadana waa inay ku timaado hab caadila dadka loo dooranayo baarlamaanka oo baarlamaanka ka qayb galaya oo hadda laga dhigay 275 waa inay si caadil ah ay ku keenaan marka taas ayaa saldhig u ah in la gaaro dib u heshiisiin dhab ah in la helo waayo doctor cabdishire isla su'aashan ku weydiinaya howlaha ugu waaweyn ee hor yaalla dib u heshiisiinta iyo kala guurka xilligan maxaa ka mid ah waxaa weeye dib u heshiisiinta hadda markaan soo qaadayno ahayd waxaan xusnay hantida la isu celinayo oo hadda aan ka soo xusnay beeraha iyo dhulka ruuxeeda in laga hadlo ma ahan hantida dadku kala haysto dawladda ruuxeedu waa inaysan si sharci darro ah hanti qaranku lahaa oo dadku u dhaxeeyay aysan gacanta u gelin dad ayadoo si gaar u wadato waxaa ka mid a waa hadda xusayaa hoteeladii oo hadda warar aan maqlay leeyihiin dawladdaa dadka ijaaraysa 100 sana laga ijaaraya 50 sana curuba la ijaaraya waxa weeye hantidan qaranka ka dhaxaysa muqdisho Soomaalidii ma wada joogto dawladna nidaamkeeda waxa ah wixeeda qarsoodi lagu ma gadi karo waa naado haddii waxaas kale loo tartamahayana waa tandar furan waa in la sameeyo dadka oo dhan ka qayb gali karaan marka dib u heshiisiinta laga hadlayo ma ahan marka beer hal qof laga soo celiyo hantidii qarankana dad khaas ah muxuu ahaa la siiyo dib u heshiisiintii ma soconayso waata waxyaalaha dastuurka ugu waaweyn qodobka ugu horeeya kamid waxa kamid ah in danta qaranka wada jirka ummadda iyo hantida qaranka aysan cid gaar ah si gooni u isticmaali karin ama aysan iyada siin karin gobonnimada dalku leeyahay marka arintan uu ka dhawaajiyay cabdishire ah hantida qaabka loo celinayo kale ma cayiman tahay guud ahaan hantida dadka ka dhaxaysa iyo hantida gaarka loo leeyahay ma la kala saaray hadda guddigan waxa loo magacaabayba waxa waaye waa inuu darso waxaan wax hal maalin iyo 2 maalin ku dhamaanaya ama bil ku dhamaanaya maaha waxay u baahan tahay daraasad dheer waxay soconaysaa dib u heshiisiintu wax dhamaanaya maaha waayo dhaawac ama mataqaanaa ku yimid dagaaladii iyo hantida mataqaanaa la kala qaatay wax yar maaha ama mataqaanaa waxa loo baahan yahay marka in ay soo darsaan hawshaasi ay noqoto hawl ay guddigaani si u kuur galaan dadka loo magacaabayana dad ma noqon doonaan kulley dad waxay noqon doonaan waay arag ah oo arrimahaasi u dhuunduleela marka waxaan rajaynaynaa kulleyba waxaa saldhig u ah kala guurka cadaalad haddii la helo ayaa dib u heshiisiin cusub la heli doonaa waayahay marka doctor cabdishire waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo maadaama hadda la leeyahay soomaaliya xilligan kala guurka waqti ha ka tagto waqti kalena ha gaarto shuruucda waddanka oo kale oo xilligan kala guurka waxyaabaha saamaynaya ka mid tahay waddanka nabadgelyadiisa iyo nidaamkiisa oo dhan ay ka shaqayn doonto laakiin marka laga hadlo si toos ah hantida gaar ahaan dawladda oo kala guurka ah khilaaf badan baa ka taagan laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasad ahaan kala guurkan sidee looga gudbayaa kala guurka horta kala guurka dhibaato badan buu leeyahay haddii aan si aad looga fiirsan weliba midda hantida dalku dawladda Soomaaliya hanti badan bay leedahay oo hadda aan gacanteeda ku jirin horta siday u baadi goobi lahaydna ama midda dhalanaysa ha noqoto ama midda joogta ha noqoto waa mas'uuliyadaheeda way marka waqtigan kala guurka ah waxaa loo baahan yahay inaan midi raacis la samayn oo midi raacisku waxa weeye hadda waxaan maqlayaa meelo shidaal oo dawladdu sii iibinayso dawladdaba waxay ahayd nidaam ahaan hadda xilliga markii doorashada hadda la soo galayo madaxweynaha kaligiis inuu xil hayay ahayd ra'iisul wasaaruhu waxay ahayd inuusan xil hayn wasiir kursi raadinaya
oo kursiga uu kula tartamayo wiil aan kursi hayn waxay wasiirku hadduu rabo kursi inuu raadiyo inuu xilka wareejiye ahayd hadda ma dhicin laakiin waxaa loo baahan yahay hantida qaranka inaan loo adeegsan muxuu ahaa wax markaan dana gaara iyo awoodo lagu raadsado waayahay waxyaabaha hadda uu xusayo dastuurka waxaa ka mid ah inay keenaan markhaatiyaal qoraal iyo dacwooyin qaarkood ay cafis u fidiyeen markay dadku wada hadlaan in dukumenti la kala qoro oo dadkii dembiyada galoo kale iscafin karaan dadkii iscafiyoo kale kuwaasi oo la xidhiira meelka dhacyada xuquuqda aadamiga iyo toosin iyo hagaajinta dembiilayaasha marka waxyaabaha u baahan guddigaasoo kale marka la dhiso waxaa ka mid ah uu leeyahay qodobku in dadku ay iscafin karaan laakiin qof kastoo qofka cafiyey wuxuu ku cafiyo dukumenti ah in maaragtay meesha ay taallo si berrito aysan howl kale u dhicin arrintaa ka warran cabdikariin abukaati arrinta ku saabsan dad meel uga dhacay xuquuqda bini aadanka iyo mataqaanaa ama fal dembiyeed sameeyey anigu ma qabo cafis inuu ku yimaado waxaan qabaa mas-uuliyaddu waa qof walba wuxuu mas-uul ka yahay falka uu sameeyo arrimaha ku saabsan hanti la kala qaatay iyo waa laysku celin karaa waa laga heshiin karaa ma garat laakiin dib u heshiisiintu kuma imaanayso qofkii mataqaanaa la og yahay ee xuquuq bini aadanka meel uga dhacay ama dad jirdil ku sameeyey ama dilay ama nafta ka gooyey ee la og yahay ee markhaatiyaal loo hayo arrimaha noocaas oo kalea anigu ma qabo dastuurku markuu ka hadlaayo markhaatiyaal inuu keeno uu leeyahay cafis ha laysku sameeyo arrimahaas markuu ka hadlaayo u malayn maayo inay yihiin waxyaabo ku takhasusa in dad mataqaanaa naf gooyey ama sameeyey xuquuqda bini aadanka meel uga dhacay arrimo noocaasoo kalea waa muhim qodobkaas waxyaabaha la cafin kara cabdikariin oo kusoo noqonaya doctor cabdi shire waxyaabaha la cafin kara iyo waxyaabaha aan la cafin karin maxay kale yihiin oo is leedahay adiga xal ahaan waad u aragtaa in waxaasna sidaa loo xaliyo waxaasna sidaa loo xaliyo horta waxaan filayaa marka guddigan wuxuu ku shaqaynahaya ama iscafiska laga hadlayo waa inuu noqdaa iscafis waafaqsan dhaqanka soomaalida annaga wixii south africa dhaqankeeda ma qaadan karo iyo cambodia iyo qolo walba marka waxaan laga samaynhayo dalalka laga sameeyey si dhaqankeeda waafaqsan dadka soomaalida ahu aniga waa ila adag tahay inuu inta warqad qoro yidhaahdo waxaas iyo waxaas baan isku cafina dhaqankaas ma naqaan waad arkaysaa malaayiin baan isu dhiibnaa lacaga annagoon waxba kala qoran marka horta iscafisku waa inuu noqdaa mid dhaqankeenna qaabkii waafaqsanoo ku yimaada waxaa kaloo jirtaa waxyaabo dadku ka heshiin karaan iyo waxyaabo aysan dadku ka heshiin karin dunuubta waxaa loo kala qaadaa mid ku xiran dhinacyaday ka dhex dhacday inay go'aan ka gaaraan iyo midaysan ka gaari karinoo hay-adaha garsoorku markay ogaadaan ay tilaabo ka qaadan ay tahay haddaad hadda cunugaaga disho wiilkaaga adaa dhalay baabuur baa subaxii soo baxaysa cunugaagaa marta adiga kuguma xira wiilkaaga go'aanka gaaristiisa booliisku hadduu maqlo waa ku xiraya laakiin haddaad wiilkaaga dhirbaaxdo yah wiilkaaga inta dhirbaaxdo ama ninkalaad dhirbaaxda labadiinnu iscafiskii wuxuu ka heshiin kartaan waa arrin yar weeye hanti baad kala haysateen hantidii waad ka wada hadasheenoo muxuu ahaa waxaan kuu dhaafay intii aad isticmaalaysay iyo wixii iyo waa kala qaadateen iscafis iyo inaad hantidii la kala wareegtaan iyo waxaad ka heshiin kartaan weeye laakiin hantidan qofkii lahaa baan dilay guriguuna igu dhex aasan yahay iscafis baana samaynahayaa ma dhacayso taas waa arrin garsoor weeye arrintaa marka arrimaha marka la kala qaado arrimo la cafin kara iyo kuwo adag baa jira waxaana muhiimaddu tahay wax walba si xal lagu helo ummaddu ay mar kale qarannimadii iyo dadnimadii uga fakirto maxay kula tahay abukaate sax waay horena waa kugu sheegay sida walaalkii sheegayna waa run horena waa kugu sheegay waxaan ku yidhi lama cafin karo markay arrimaha qaarkood ay dhacaan waxa waaye waa inayba garsoorku iyadoo waxaa jiro mataqaanaa sharciga siduu leeyahay arrimo noocaasoo kale mar dhacaan garsoorku waxa weye isagaa dhaqaaqayo maaha waxa ku haysta adigu dembiga waxa ku haysto waxa weye waxa ku haysto gobonnimada la sheegayaba taasa waxa ku haysto waddankaa ku haysto waxaad meel uga dhacday shuruucdii iyo wixii jiray oo mataqaanaa waddankaad meel uga dhacday marka lafteeda abukaato kusoo noqonaya marka laga hadlaayo iscafinta marka laga hadlaayo sida mataqaanaa wax la kala qaatay iyo waa macquul in mataqaanaa laysku cafiyo dadkiina waa joogaan waa la iscafin karaa fal dembiyeed anigu ma qabo in cafis la sameeyo barnaamijkan waxaa diyaariyey aamil media limited
arrimo badanaa jira oo ay ka mid tahay waxyaaba waxaa jira cafiska oo guud ahaan dadka ay iscafin karaan iyo waxyaaba si qarana loo galay dembiye loo galay qof warshado iibsada waddanku lahaay oo kale ama sun bad soomaaliya leedaha ku shubay oo kale taas waa arrin dadka dhan wada saamaynaysa qof walba dembi laga galay ah laakiin qaranka u taalla taasoo kale iyadu ma ku jirtaa waxyaabaha laga wada hadlayo taas waxaan u malaynayaa qaranka waxyaabaha laga galay dawladda u xilsaaran inay ciddii gashay ku daba gasho oo haddii ay dhacdo muxuu ahaa inkastoo cadeymaha waxyaabaha qaarkood cadeymahoodu ay aad u adag yihiin dawladdaha laga rabaa inay waxaas haddii dad sun ku duugay dalka ay jiraan haddii dad lagu caddaynayo warshada inay qaateen ay jiraan waxaa weeye arrintaas dawladda u xilsaaran waxaa dadku iska cafiyahayaa waa waxa asagu sida gaarka u leeyahay waa gartay laakiin hadda waxaa jira dad dawooyin la siiyey dawooyinka soomaaliya lagu iibiyo kale oo jirkoodii midabka isbedelay oo dhibaato ku dhacday sidaan dukumentiya ku hayno marka dhibkaasoo kale dawadaas cidda keentay keliya ma ahane waxay wada saamaynaysaa mujtamac oo kale sida sunta soomaaliya lagu shubo oo kale carruur aan garaadkooda fiican dhalanayso arrimahaasoo kale maxaa laga qaban karaa arrimahaas waa xusi wuxuu xusay in madaxweynuhu uu magacaabayo gardoonka dadweynaha macnaha waxyaabihii laga galay shacbigan laga gala ad sheegaysaa gardoonka dadweynaha marka arrimahaas guddigan oo dib u heshiisiintana waa jiraa waxaa kaloo jiro uu madaxweynuhu magacaabaya suu sheegaayo gardoonka oo adeega dadweynaha muxuu la mid yahay marka shuruudaha looga baahan yahay maxay tahay madaxweynuhu waa magacaabaya laakiin dastuurku wuxuu siinayaa tilmaamid oo ah sida guddoomiyaha maxkamadda sare oo kale shuruudaha looga baahan yahay ayaa looga baahan yahay isagana marka adeega gardoonka dadweynaha wuxuu ka shaqaynayaa muddo 7 sano ah ayuu wuxuu ka shaqaynayaa dhinaca mataqaanaa arrimahaas aan sheegnay oo ah dhibaatooyinkaas dadweynaha khaasatan ma aha shacbiga macnaha waxaa tiri moogtahay wax loo wada saman yahay jirto oo dadweynaha dhan laga galay arrimahaas iyo arrimo la mid ah ayuu mataqaanaa baaris ku galay isagoo la shaqaynaya garsoorka waaya marka arrintan kale guurka iyo oo cadaalad ku dhisan ma saamaynaysaa baaritaanada noocaas oo kale ah oo dembiga guud ahaan shacabka laga galay iyo kan ay gaargaar ahaan u kala galeen maxaa lagu kala xallin karaa kala guurka cadaalad ku dhisan horta waa arrin aad u adag sideedaba cadaaladda waxaa la yidhahdaa bini aadanka dhegihiisu waxay maqlaan ereyga cadaalad bay ugu jecel yihiin nafta aadamigu wax lagu fuliyana ereyga cadaalad bay ugu necabto marka kala guurka cadaalad ku dhisan marka la yidhahdo horta inaan in la isku dayo weeye cadaaladda laakiin in la gaari karo waa aad bay u adagta hadda waxaa jira qaab baa jira oo buuq baa ka jira odayaasha dhaqanka qaar badan la iskuma raacsana dadka haddii hadda dawladdu inta fududaysato la yidhaahdo intaasaa la qabanhayaa guddigii waxalin lahaa guddigii dastuurka ansixin lahaa oo arrintaa la inkiro xildhibaanka odaygii soo doorhayey dadku u aqoonsan yahay inuusan odaygii beesha ahayn xildhibaankaasna xildhibaan beeleedoo dawladdii beesha kusoo xira ma noqon doono xataa hadduu meesha iska joogo nin mushaar un kaa qaata kursigana kaa buxushuu noqonayaa marka horta cadaaladdana waxaa laga bilaabaa gunta waxaan is leeyahay aad ha looga fakero odayaasha dhaqanka waxa laga tabanhayana ayaga in la buuxsho oo kuwa aan ahayn dhaqankii ama aan loo kala hiilin oo la kala jeclaysanin hadda waxaa jira kuwa badan oo isku haysta aniga hadda beeshayda waa isku haysataa waxaa weeye labadii is haysatay ayadoon loo garnaqin baa labadii midna guddigii ku jiraa weliba guddigii xalinta arbitrationka waxaa lagu daray kii wax lagu haystay waa wax la yaab la wey waxaa loo baahan yahay intii la isku dayi karo si dadku hadda annagu waxaan u baahannahay ma ahan dawlad kasta dawladdaan u baahannahay waa dawlad dadku ku kalsoon yahay oo la shaqeeyo kalsoonina waxay ku imaan kartaa cadaalad bes haye abukaata cabdikariim marka waa run cadaaladda ilaaha caadilah oo cadaaladda qof bini aadan ma gaari karo cadaalad buuxda oo cadaaladda buuxda ilaaha loo nisbeeyaa laakiin waxaan is leeyahay ilaa xad in lagu dadaalo in la qanciyo marka mataqaanaa hadda odayaashii dhaqanka waa la soo magacaabay waa joogaan odayaasha dhaqanka waxay keeni doonaan habraaca siduu u socdo waxay keeni doonaan golaha ansixinaya dastuurka golahaasi oo 825 ah sida habraaca uu sheegayo oo roadmapka dadkaas waxaa loo baahan yahay marka lasoo magacaabayo in mataqaanaa ilaa xad cadaaladda la dhowro
sideedana kumeelgaar inaan ka baxno waa wax loo baahan yahay waayo kumeelgaarnimada waxa waaye gobonnimadayna xataa ma dhamo markaan ka hadlayno gobonnimo aan leeyahay waxaan ka wadaa waxa afka galaad lagu yidhaaha sovereignity waxa weeye macnaha waa inaad leedahay inaad gob tahay oo aad xor tahay keliya maaha waa inaad leedahay sharci aad ku kala dambayso oo dadka oo dhan ka sareeya oo qabanaya xitaa kuwa ku maamulaya sharci qabanaya intaas keliya kuma eko waa inaad leedahay hay-adihii 3 hay-adood oo awooddaasi fulinayay oo kala qaybsan iyada naftirkeeda gobonnimaday ka mid tahay marka waxaan isleeyahay kala guur caadil ah kulley gunaanadkii aan ku bilaaban ku gabagabeynayaa caadil siduu sheegay waa run ilaah unbaa caadil macnaha cadaalad buuxda laga heli kara laakiin bini aadamku inuu isku dayo inaa ilaa xad la soo buuxiyo oo mataqaanaa la qanciyo odayaasha ay keenaan iyagana mataqaanaa ay golaha ansixinta iyo baarlamaankaba 275 waayahay waxaa jiray in muddo 10 sana kumeelgaar lagu jiray kolleyba kumeelgaarnimadaasna in waa aragnimo laga qaato weeye waana markii ugu horreyso la yidhaha dastuur ha la qoro bal dadku ha ku kala dambeeyaan ugu yaraan arrintan marka dib u heshiisiinta iyo kala guurka oo cadaalad ku dhisan maxaa xalab aad is leedahay doctor cabdi shire buugaag badanna waad ka qortay arrimahan xalinta khilaafaadka aniga waxaan is leeyahay horta in kala guurka ama laga guuro muxuu ahaa kumeelgaar wax fiican weeye laakiin waa wax u baahan in aad looga fiirsado khatar badan bay leedahay khatartay leedahay waxaa weeye haddii aan jihadii markaad reerka la rarayo reerku in loo sahamiyo u baahan yahay waxaa u baahan yahay in biyo uu haysto oo xoolihii la waraabiyo haddaan si fiican loo rarin meel aan loo baahnayn arrintuu ku dheeliy marka waxaa loo baahan yahay dadka in si fiican loo raro laga fara buuxsado danta shakhsigaana waa in laga hormariyaa midda qaranka qarannimo in la dhaliyo waxay ka fiican tahay inaad adigu wax yaroo luflufa aad hesho marka waxaan isleeyahay kala guurka waa arrin khatarteedana leh loona baahan yahay in laga gudbo haddii marka dadka shacbiga soomaaliya asagoo ruuxiisu shacbigu wuxuu leeyahay doorkiisa inuu qaato oo doorka muxuu ku qaadanayaa shacbigu waxa la rabo in la dowladeeyo oo dowladda loo samaynhayaa waa asaga waa inuu dowladda ruuxiisu siduu u rabo asagu ruuxiisu roolkiisa u qaato waa in shacbigu uusan noqonin dad wax loo yeersho asagu waa inuu noqdaa midkii dhihi lahaa kanaa igu habboon kana iguma habboona waxaan ma rabo waxaan waa rabaa asagoon duminayn dalkiisa dadkana muxuu aha la isxaq dhowrhayo aad u mahadsan tahay gabagabadii marka abukaate cabdikariin xalka maxaad is leedahay arrintan kala guurka waa looga faa'idaysan karaa iyadoo la tixgelinayo dastuurka halka aan u soconno ama meesha aan rabno inaan gaarnaa waxay tahay in gobonnimada macnaha loo celiyo shacbiga iska leh shacbiga waa inay iyagu sheegtaan sida uu sheegaya walaalkay iyagu meeshaasaan u soconnaa inay yidhaahdaan qofkaasaan rabnaa qofkaan ma rabno taasna waaye markaan ka baxno kumeelgaarka meesha aan gaarayno oo ah baarlamaankani wuxuu soo diyaarin doonaa marka la dhiso waxaa lagu doortay baarlamaankan 4 habkaasna waa hab aanan annaga noo fiicnayn macnaha waxaan ka wadaa maaha cadaalad maaha waxaa wanaagsan in la gaaro hab uu qof kasta shakhsi kasta uu leeyahay qofkaasaan rabaa iyo ma rabo taasaana gobonnimada ku jirtaa waa taa dhegaystayaal waan filayaa inaad ka bogateen dooddaasi dhex maraysay doctor cabdi shire warsame iyo abukaate cabdulkariim maxamed soomaali barnaamijkii dhegaystayaal intaa ayuu ku dhan yahay intaynu dib isku maqli doonno waa ayaanla xuseen cabdi oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo barnaamijkan waxaa idiin soo saaray aamin media limited